tarehe 15. Tulifika huku tarehe 15 huu mwezi wa 7. Lakini kwa kweli si huu muda wote tulikuja tukafungiwa kwa room, hatutoki nje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soo dhawaada akhyaarta sharafta leh marka soo joogtaan. Gabdha muslimiin u badan ka tagay dalka Kenya una shaqo doontay dalka Saudi Arabia yaa waxa ay soo duween muuqaalo ee cabashadooda ay ku soo gudbinayaan. Waxa laga dheehan karay tacadiye ka muuqdo qalbi ahaan, jismi ahaan intaba. balse intaanan guda gelin xogahaas ku saabsan haddii aad ku cusubtay channelka subscribe, like, share inta inoo saar. dhanka Facebook-gana dee follow-na soo dheh waayo muuqaalo qurux badan markasta aan kusoo gudbinaa. sanad kasta waxaa dhacda dalka Kenya dhacdooyin ay dadka inta badan aad ay uga argagaxaan, kuwaasi oo laga soo sheegayo boqortooyada Saudi Arabia. boqortooyada Saudi Arabia sidaan wada ognahayba dadkeeda ma shaqaystayaal bay mataqaanay u badan yihiin, waayo shaqaalay ka dalbadaan dalka dibadiisa. shaqaalihii u shaqaynayayna dee sidii la rabay mataqaanay olama dhaqmaan. weliba dadka muslimiinta ah ee u shaqeeyo ay dhibaato aad u fara badan mataqaanay ku hayaan. waan ognahay Soomaalidu dhibaatada mataqaanay ay kala kulanto. hadda maanta waxaa miiska noo saaran gabdho ka tegay coast ama mataqaanay gobolka Mombasa ka tegay oo tegay Saudi Arabia halkaas u shaqo doontay. koo gabdhahan waa muslimiin, laba waxay u shaqo doonteen dal islaam ah iyo u shaqo doonteen iyaga oo ka dugsanayo oo leh islaam baa tihiin, qof islaam baa u shaqaynaysaa, mishaar fiican buu ku siinayaa, dadkiinina waa anfacaysaa. laakiin taa beddelkeedii maxay sameeyeen? gabdhihii muuqaal bay soo duubeen ay kaga cabanayeen tacadiyada loo geysto. ciqaab midda u dambeysay mataqaana ayaa la mariyaa. inkasta oo hadda markii baraha bulshada la soo geliyay muuqaaladaasi aad looga falceliyay, yaa mid ka mid ah dadka ugu caansan dalkan Kenya ayaa waxa uu soo qoray oo uu yidhi inta badan dhibaatadu mid bay ka bilaabataa. gabdhaha kulli isku mid ma aha, laakiin kuwa qaar yuu yidhi gabadhu guriga ay joogta ay ka shaqaynayso, haddii mataqaanay ninka guriga iska leh intay xiriir hoose sameeyaan yaa dhici karta in lagu arko iyagoo mataqaanay halka iyada wax xumaan ee sameynayo, kadibna mataqaanay ciqaab oo waxa la marinaya marka asaga cadaab ee mataqaanay kala kulmayaan. laakiin se marba hadday sameeyeen xataa oo kan guriga iska leh meel ciqaabina isaga laftiisa waa galay isaga laftiisa meel maal ciqaab maxaa maskiinta bis loo ciqaabi. waa dhibaatada jirta wey. maalin waxaan daawaday muuqaal inaan ka sheekeynayay u shaqo doontay dalka Qatar. waata wadamada carabta waa isku wada mid dhaamala. dadkaasi waxaad moodaa dhagan xariis inay ka guurtay. islaamnimadu iyo diinteena waxayna farayso iyo dadkaasi si u dhaqmayaan aad bay mataqaan u kala fogtahay. shaqaalaha marka eegto waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid ahaa inankaasi wuxuu yidhi khayrkaayo masaakiin bay ahaayeen, waxa ma aysan haysan. waxaan arkay shaqooyin badan baan yaan ablaagareeyay. shaqo ka mid ah shaqooyinka iyaga yaa lii sheegay inaan saaxiibo nahay. wuxuu yidhi waxaan joogaa Qatar, halkaasaan ka shaqaystaa, intaasoo $1,000 baan qaataa, waan daragsanahay. waxaan damcay marka shaqadii in aan raadiyo aan helo. shaqadii waan raadiyey, waxaa la igu yidhi lacag $1,500 keen shaqadii sidaasaa mataqaana ayaad ku helaysaa. oo xataa ay ku jirta diyaarad tigidka, laakiin fiisaha diyaarad tigidka wax dhan lacagta maan heli karin. laakiin waan raadiyey waxaan u qaraawo wacdaba lacagtaan soo helay waan la baxay. waan tegay buu yidhi aniga oo markaasi isleh meel qurux badan oo wanaagsan yaa mataqaana ayaad ka shaqayn doontaa ood ka howlgeli oo aad mataqaana isku tacajabinayo. markii aan elaboorka aan ka tegay wax ay imaada ma arkin buu dhahay. waxaa yidhi gaariyaa soo qaado meeshaas iyada ee tag. anigu waxaan u haystay buu marka ee tag meeshaa lileeyahayna inay tahay hotel inaan ku degayo.
sidii baan yeelay gaari waan soo qaatay meesha haddaan imaadayba dad dee isku mid aan nahay laftooda iyo laakiin iga soo horreeyey meesha yaa joogo meesha wuxuu yidhi xataa xoolaha xataa laguma xarayn karo meelaad u kulul oo dhiqlaha iyo injirta iyo balaayada u yaacay hadda arta aad yaabi oo loogu talagalay shaqaalaha bese inay seexdaan yaan imaaduu dhahay habeenkii dhan baan fikirayay aana urasay wax u jiraan halkaa u socotay iyo meesha haddii shaqada aad bilaabi lahayd waxaa ka daranba meesha horta aad ku noolaan lahayd ma ka horreysa meesha aad ku noolaan lahayd yaaba ka horreysaba haba socoto iyadoo ciqaabtaasi ay jirtoon ogahay haddana ayaan ku samray u dhahay shaqadaan bilaa wardiyaan mataqaanaa la qoray waa nin PhD wato jaamacad wardiye yaa la qoray buu dhahay waa iskaga samray kuleelka iyo haraadka iyo wax meesha ka jiran kulli wadamada carabta aad bay mataqaanaa u kulul yihiin waa ku qaatay buu dhahay haddii mishaarkii la ii qoray haddana bil kasta isay tahay aan u helayana faa'iide aad u fara badan baan qabi lahaa buu dhahay laakiin markii 3 bilood ayna moodaan 2 bil la siin buu mise bil la siin haddii aad yar hadashana waxaa loo leeyahay marka hore shaqaala ahayd kan way baasaboorka waa laga xariyo ma haysatid iqaamo laguma siinayo waxaa weeye garaaca lagu bilaabay iyo handadaad iyo dhib dalka dib ugu soo noqon kartid meesha ma joogi kartid marka ciqaabtaasu mataqaanaa ayuu ka sheekeynayay markaasa waxaa la yidhi jaxiimada qadar taalla marka qadarkeygii ma taalle wadamada carabta kulli waxa yaala waa jaxiimo shaqaaluhu dadka way baahan yihiin marka baahidaasi ay baahan yihiin baa looga faa'iidaysanayaa oo shaqo ay geli karin mishaarkooda lagu ciyaaro iyaga oo lagu tunto waxaas o dhan ma lagu sameyn haddana ragga iyo dumarku way sii kala duwan yihiin dee dumarku way kasii xag jiraan way ka nugul yihiin raggu marka haddii tacadiye intaas leeg iyagan loola dhaqmo waad garan kartaa dhibaatada iyadan ka dhalan karta waxaan ogeyn gabdho badan soomaalida iyagan saas kalantay meeshaas la geeyay ilaa hadda dhibaato ay ku haysato qaarkood dabaq iska soo tuureen qaarkood sun cabay iyo waxyaabo kale oo fara badan waa la wada ogyahay waan ka dharagsanay soomaalidana hadda gabdhahan waxay soo duween muuqaal ay kaga sheekeynayaan marka ayaga tacadiyada iyo dhibka iyaga loo geysto waxay ka dalbadeen dowladda Kenya in ay gabdhahaasi u gargaarto ayna ka soo bixisa gacanta magafayaasha Sacuudi Carabiya waayo magafayaal wey maxaa yeelay haddaad aragto meel qofkii la garaacayo la dirayo la jirdilayo dhibaato loo geysanayo dee say magafaha xasma dhaamaan magac dowlad waxba yaa la huban laakiin isku mid wey waa magafa un marka gabdhaha iyaga dowladda Kenya markaasi haddii usoo cabanayaan sanad kastaba arrintan iyada way dhacdaa oo dowladda Kenya iyo Sacuudi Carabiya samay mataqaanaa isku dhacaan arrimahan isku gafaan marka wax hadda ugu horleena ma ahan laakiin gabdhahaasi muslimiinta usoo duceeya in Ilaahay ka soo badbaadiyo dadka dhibaatada u geysanaya ee haysta iyo kuwa kale ee lafta muslimiinta aan ahayn laakiin iyaga xataa mataqaanaa ku dhiban meesha iyada waa bini aadan daawadayaal waxaan intaas kusoo gabagabeynay barnaamijkan intaa midkan kan xiguu kulmeyno nabadgelyo